ugu horeyn ku soo barnaamijka su'aalaha Camo TV waxaan doonaynaa inaan ku weydiino galabta su'aal ra'yi ururina oo aan weydiinay galabta bulshada su'aashu waxay leedahay magaca deegaanka waxa loo yaqaanaa ama magacyo kala duwan bulshadu adeegsataa marka magacyadaas adigu magaca saxda ah aad u taqaano deegaanka muxuu noqonayaa magaca saxda ah oo qana dawladda deegaanka Soomaalida way sababta marka aad u aqoonsatay dawladda deegaanka Soomaalida waa dawladda deegaanka Soomaalida waxaan ugu aqoonsaday way ku qoran tahay hadda dawladda deegaanka Soomaalida ay ku qoran tahay saadaradeed waa la isku waafaqay wixii la isku waafaqay manana la isku waafaqay marka taas la wala isku waafaqsan yaa isku waafaqsan marka asura shacab iyo dawlad waa la isku waafaqsan shacabka soo kala qaybsan magacyada kala duwan yaqaan ma magacyada kala duwan way jiraan laakiin hadda hal lagu yaqaanaa dawladda deegaanka Soomaalida su'aal aan galabta bulshada weydiinaynay oo ra'yi ururina su'aasha inaad marka ka jawaabto ama nagala qayb qaadato ma tahay diyaar baan u ahay magacayguna waa Axmed Cabdi Maxamuud halkan waxaan diyaar ugu ahay inaan su'aasha ka jawaabo hadii Allah waafajiyo Axmedow su'aashan ku weydiinay waxa weeye waa su'aal ra'yi ururina waxayna leedahay deegaanka Soomaalida magacyo badan oo kala duwan baa loo yaqaanaa bulshadu u taqaanaa marka magaca saxda ah adigu aad u taqaano deegaanka Soomaalida waa waa dawladda deegaanka Soomaalida weey dawladda deegaanka Soomaalida marka sababta aad ugu doortay magacaas waxa weeye dawladda deegaanka Soomaalida yaani intii dawladdan hore waxa loo yaqaan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia tan dambana dawladda deegaanka Soomaalida ma loo yaqaan marka hadda qofka dawladda ma la jaan qaadaya marka magacyada kale adigu waa diidada leedahay adigu madde kolba bulshadu joogtaa waxay isticmaasho ma la isticmaalayaan oo aqaan marka dawladda adiga ku bilaabay magacaaga soo Camo TV magacayga Maxamed Abiibo Cabdi Maxamed Abiibo Cabdi maxamedow waxaan doonayaa halkan inaan ka weydiiyo galabta su'aal ra'yi ururina ku weydiinaya su'aashuna waxay ku leedahay magaca deegaanka Soomaalida dadku isku khilaafsan yihiin magaca deegaanka Soomaalida magaca aad u taqaano ama magaca saxda ah ee lahayd deegaanka Soomaalida uu leeyahay maxaa weeye magacaan oo aqaan anigu dawladda deegaanka Soomaalida Maxamed Ali baa leeyahay maxamedow waxaan doonayaa inaan halkan ka weydiiyo su'aal ra'yi ururina marka su'aasha jawaabteeda diyaar ma tahay diyaar baan magaca deegaanka dadku inba magac loo taqaana amba inba magac bay adeegsataa marka deegaanka magac dhabayaan qaar waxay yiraahdaan Soomaali galbeed qaar waxay yiraahdaan Soomaali state qaar waxay yiraahdaan ogaadeen marka magacyadaas midkeed adigu ra'yigaaga u taqaana oo sax baad leedahay deegaanka Soomaali galbeed oo aqaana Soomaali galbeed oo taqaana marka sababta Soomaali galbeed ugu aqoonsado ma aad u taqaana Soomaalida galbeed ba ka diganta galbeed Soomaali kale way jirtay way aad u mas'aalaha oo ku bilaabay magacaaga ku soo dhawow su'aalaha Camo TV magacaygu waa Maxamed Sheekh Abdullaahi maxamedow su'aal ra'yi ururina ayaan bulshada galabta weydiinaynaa marka su'aasha inaad ka jawaabto waa nagala qayb qaadato diyaar ma tahay صح aad iyo aad diyaar way waxaad sheegtaa magaca deegaanka Soomaalida runtii dadka bulshada deegaanku magacyo kala duwan bay u taqaanaa deegaanka marka magaca saxda ah adigu aad deegaanka u taqaan magaca saxda ah deegaanka uu leeyahay isku ma darsana magaca saxda ah deegaanka uu leeyahay waa ogaadeenaya marka sabab dadka qaar waxay leeyihiin ogaadeenaya waa magac qabiil marka sababta aad magaca ugu aqoonsato ma waxay tahay sababta magaca ugu aqoonsaday anigu Carabaha Sacuudiga baan joogo jiro qariirada baan ka arkay qayb kamid ah ogaadeenaya ayadoo ku qoran dhulka Itoobiya qayb kamid ah ogaadeenaya de qariirada anaga ma qorinday marka maadaama ilaa Ingiriiskii way jirtay marka maadaama qariirada magacaasi ku qoran yahay sidaas ba magaca caanka oo saxda lagu garay aad baan ka madcelinaa ra'yiga aad ka dhibatay oo maasantahay wareen walaal adoo ku bilaabay magacaaga ku soo dhawow barnaamijka Camo TV waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aalo ra'yi ururina oo aan galabta bulshada weydiinaynay su'aalaha jawaabtooda diyaar ma tahay diyaar baan oo marka hore magacaygu waa Yuusuf Cabdi Barre inaan su'aalahana aadaan karto waan ka jawaabo Yuusuf su'aashan ku weydiinay waxa weeye deegaanka magacyo badan baa loo yaqaanaa bulshadu u taqaanaa oo kala duwan marka magaca saxda ah adigu aad deegaanka u taqaano wuxuu noqonayaa waa Soomaali galbeed Yuusuf maxay tahay marka magaca Soomaali galbeed sababta aad ku dooratay ama aad ugu aqoonsatay deegaanka waa la dhahaa iyadoo la dhawo man garanaa ilaa xilliga u taqaanaa iyadoo la dhahaa ilaa Soomaali galbeed iyo Hargeysana Soomaali waqooyi la dhahaa marka saas bay u kala baxsan tahay Soomaaliyan way aad ka mid